مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام وعنا wanaagsan daawadayaal idil hantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka hel hadiyada oo ah barnaamij su'aalo kala duwan aynu jecelnahay in bulshada ku nool magaalada Muqdisho aynu ku weydiino su'aalahaasi oo maadi iyo waliba cilmi isugu jira iyo diini waxaadna ka daawanaysaan telefishinka dalsan xarunta dhexe magaalada Muqdisho ayuu kaga imanayay baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube-ka idinkoo aragtidiina kala duwan barnaamijka noo soo bandhigi doona barnaamijkan waxaa taabagelinaysa shirkadda daabacadda caalamiga ee Super Sand Design oo ah shirkad markaasi daabacadda noocyada kala duwan bulshada Soomaaliyeed iyo adeegeeda u qabata kuwaasi oo degdeg ugu adeegtay isla markaana adeeg hufan iyo qiimo jaban Ramadaanul Kariim markan su'aalaha ayaynu gudagali doonaa iyo qofkii nasiib u yeesha in aynu su'aal weydiino su'aalaha nambarada ay nooga bilaaban doonaan waa nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad Ramadaanul Kariim waa tahay daawadayaal wiil da'yar oo markaasi ka yimid dhinacii waxbarashada iyo tacliinta iyo hooyga waxbarashada ayaa halkan isaguna aynu kula kulannay oo jeclaystay bal inuu isna wax uun isku dayo waa wiil da'yar magaciisa ayuu noogu bilaabi doonaa saaxiib magacaaga Cabdullaahi Abuukar Maxamed Cabdullaahi ku soo dhawow barnaamijka waa dhawa haye su'aal ayaa jeceshahay inaad ka jawaab celiso ma haye nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad nambarka shanaad su'aal ayaa ku xusan waxa ay leedahay su'aasha sida tan waa maxay shayga socda oo istaaga haddana aan wax lagu ah lahayn waxaad sheegtaa shayga ama shay socda oo istaaga haddana aan lagu lahayn misku dii kartaa hooska hooska miya hooska lagu male waa leeyahay ay ma istaaga hooska waa istaaga miya waa mahadsantahay waa isku dayday laakiin maadan garan waqti wanaagsan ku rajaynaynaa in nasiib kale waa tahay Ramadaanul Kariim ayaynu idin leenahay daawadayaal saaxiib kale ayaa inala taagan barnaamijka hel hadiyad Super Sand telefishinka dalsan waad kala socotaan su'aalo kala duwan ayaynu weydiin doonaa saaxiibadeena la kulanno saaxiib magacaaga ugu horreyn magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Maxamed kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho si fiican manin sporti misnin xamaasha nin xamaashana fanta ما شاء الله سؤال كفايديس وباهنا أيها إنه تعالى ما إذا كفايديس نيسا ما نمبر أيها قبسن دونتا runtii waan ka faa'iideysanaa nambarna waa qabsanaa waagan su'aasha meesha inoo taala waxay tahay waa maxay shayga socda oo istaaga haddana aan lagu lahayn shayga socda waa shay socda oo istaaga haddana aan lagu lahayn waxay tahay uma leenayaa miisaanka miisaanka waxaa waaye markii la saaraayo meelaaba la saarayba kan lagu lahaan waaye taas oo ma dhaqaaqa marka waxaan lagu lahayn oo socda waxaad sheegtaa wax socda haddana istaaga haddana lagu aan lahayn waa gaargacanka saddex lugood uu leeyahay ay waa ka gudubtaa su'aalaha nambarka koowaad ilaa nambarka shanaad weeyaan nambarka shanaad ayaa inoo baxay 1 ilaa 4 ayaa markaa su'aalahay ku xusan yihiin nambarka aad isleedahay alla ilaa xilligan albaabka u garaacaye waa ma santiin dalsan TV waxaan qabsanaa nambarka saddexaad
nambarka saddexaad ee barnaamijka dabcan su'aalo cajiiba ayaa ku xusan su'aasha waxay leedahay sida tan waa maxay labada wax ee aan la cuni karin xilliga quraacda labada wax oo cunta anigu waan kuu sheegay su'aasha waxa weeyaan su'aalo basiida oo u baahan fikir in loogu jawaabo waxay leedahay waa maxay labada wax ee aan la cuni karin xilliga quraacda xilliga quraacda waad fikiri kartaa sakana ayaad haysataa saddex mar ayaad isku dayeysaa dee isku daygu waa wax cajiiba waxaa waaye marka qofka sameeya wax walba ka xaraama markuu soomaya mala quraacdo mala qaday mala la casheeyo laakiin aniga su'aasha aan ku weydiiyey waxa ay tahay waa maxay labada wax ee aan la cuni karin waqtiga ama xilliga quraacda maasha allah haddaad isku dayo runtii wax walba horta waa isku day su-aashaas haddaad isku dayo waxay tahay waa labada waqti marka maqribka laba waqti waxaa moodaa su'aasha inaad shaarbaha ka maraysid si fiican laakiin ilaa ka jawaabtid ayaa ku ag wareegaysaa marka mar saddexaad jaanis ayaad u haysataa inaad ka jawaab celiso haddaan isku dayo su-aashaas waxay tahay in macnaha xilliga hore aan waxba la cuni karin waa tahay waad dadaashay laakiin jawaabta rasmiga ah weli maadan haleelin saaxiib soo dhawa ayaan leeyahay waagaag daawadayaal waxaa inoo yaalla laba su'aalood waa su-aasha shanaad ee barnaamijka iyo weliba sidoo kale su-aasha saddexaad oo u baahan in laga faa'iidaysto nin dhallinyaraha wiil aad u daayar oo ka mid ah baada waxbarashada saaxiib magacaaga ismaaciil abduqaadir maxamed ismaaciil ma su'aala ka faa'iidaysanay su-aasha shanaad mise tan saddexaad tan saddexaad tan saddexaad waxay ahayd waa maxay labada wax ee aan la cuni karin xilliga quraacda cashada iyo qadada waa hagaag magacayga ugu celi ismaaciil aad u mahadsan yahay daawadayaal su-aasha aan weydiinay ka faa'iidaysiga jawaabta waa mid sax ah oo ahayd waa maxay labada waxay aan la cuni karin xilliga quraacda waa qadada iyo cashada aad baad mahadsantahay ismaaciil yare hadiyaddii ay subarsan kugu talagashay ayaynu ku siinaynaa waxaa ku guulaysatay koob aad ku qaxwaysan karto ku mushaaraysan karto weliba biyana ku cabi karto soo dhowo ismaaciil waa mahadsantahay waa hagaag ismaaciil fasalkee dhigataa shanaad iskuulkee waa hagaag aad baa umahadsan tahay hadiyaddaadana waad ku guulaysatay soo dhowo ismaaciil yare waa mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hel hadiyad telefishinka dalsan ayaad nagala socotaan super sign design ayaana ugu talagashay hadiyado kala duwan inay ku bixiso su-aashii saddexaad dabcan waxaa ku guulaystay ismaaciil yare markana waxaa inoo harsan su'aal ka faa'iidaysi u baahan iyo su'aalo markaasi toosa waxaa ila taagan wiil dhallinyaro ah oo arday ah marka hore magacaaga maxamed cadnaan maxamed maxamed waxaa ka mid tahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho haddana wax barta nacam أي سؤال كفايديس أي نوع هرسن ديار متى أنا كفايديس ها سؤال شا إن كفايديس قوات الشناد وحلا داي وام حي شيء الصعدة أو استاجا حدنا اللغة لهين هذه سؤال جوابته تسكت ده وساعدة مقعي وعلي محمد عدنان محمد جوابته بحي ومتصحة واحد صعدة أو استاجا حدنا اللغة لهين وساعدة haddii bateriga uu ka dhaco way istaagaysaa haddana luga ma laha hambali ayaan ku leeyahay hadiyaddii super sign ee funaanadda aad ku guulaysatay ayaan ku guudeensiin doonaa adiga iyo baada waxbarashada aad baan kuu salaamaynaa ininka aad lii salaamaya hadiyadda aan siisay waa tahay daawadayaal hadiyaddii loogu talagalay ayuu saaxiibkay gudoomaya hambali aan ku leenahay ininka hambali leeyahay iyo ardaydeeda hambali leeyahay iskuulkayga igu dhiigeliya ila su'aashaan ku jawaabo waa mahadsantahay ininka aad u mahadsantiin واجاك مركلة رمضان الكريم برامج كله هدية سوبر سين أي تابقلنا سي تلفزيون كدل سواد كلا سعوتان كمردو وسعيبك محمد معلو أنا وحصل لك يا برامج كدين سو صاري هل كان إذا كلا سعود سين يا مركنا دين عي سؤالا صاحب كلا ودل يرى يا لتان صاحب مقعد حسن عبد حسن حسن واحد كم تاع دل يرى مقالة مقدشو مقالة مقدشو جودك مذا حسن كرأي أنا قد داوني مركز سؤالا أسوق مين مركنا اسكو صود هذا سوما هذا صود أيوة ما سنت حسن وحينو هرسن saddex su'aalood oo ah su'aashii koowaad su'aashii labaad iyo waliba su'aashii afraad haye ma isku dayi kartaa
su-aasha afraad ee barnaamijka waxay ku leedahay sida tan waxaad sheegtaa ama waa maxay shay aan socon karin ilaa iyo madaxa laga garaaco shay aan socon karin ilaa madaxa laga garaaco bini aadanna ma ku jirayaa musbaarku waa magacaygu weli xasan cabdi xasan xasan maxay leedahay wax markii ilaa madaxa laga garaacan soconaya musbaar ma ay leedahay kolsonta waa hagaag xasan aad buu umahadsan yahay jawaabtii wuu haleelay wax ama shay madaxa ilaa laga garaacan soconayno waa musbaarka saaxiib soo dhawaayeen ku leenahay hadiidaada aynu jecelnahay in aan ku guddoonsiino in dhallinyarada ay kaa faa'iidaystaanna wax weyn ayay tahay hambalayo halkaaga igu ambali wada mudan waa tahay waxa uu ku guulaystay samigay xasan carfiso guriga iyo xaafadda iyo qolka iyo reerkaba wuu u shidi doonaa soo saas ma suucan laakiin markii hore dhowr jeer ayaa isku soo dayday inaad su'aalaha agtooda ka soo dhawaato ama aad soo gasho cabsi ayaa dareemaysa miya cabsi ayaa u jirta markaas waa mahadsantaa soo dhowo waa dhowe aad iyo aad waa tahay daawadayaal waxaad mooddaa su'aalihiiba in layga wada haleelayo malaha waxaan islaa dhowr su'aalood ayaa dib ula laaban doontaa ama dadka na daawanaya fursad loo siin doonaa laakiin nasiibkuba waxaan ka badin lahay saaxiibadii aan su'aalaha weydiinayay mid hadduu garan waayo qof kale ayaa su'aashii iga faralaabay isla markaana sidaa ku qaadanay waa qof waliba iyo nasiibkiisa super sandhisan ayaa taabagelinaysa dalsan t v-na waad kala socotaan hel hadiyad ramadaanul kariim saaxiib kale ayaa ila taagan saaxiib soo dhowow waa dhawaay saaxiib magacaaga magacayga ciise boolo guura ciise ku soo dhowow barnaamijka hel hadiyad aada ugu dhawahay waa barnaamij ugu talagalnay su'aalo inaan dhallinyarada ku weydiino oo qofna uu u faadeeya dhallinyarada qofna dhallinyarada uu ka faadeeyay si fiican su'aalo kala duwan ayaa inoo yaalay 1 ilaa 5 ayay ahayd waxay noo harsan laba su'aalood oo kala ah su'aashii koowaad iyo su'aasha labaad labada su'aal ayaa miiska inoo saaran tee baa nasiibsanaysaa su'aasha labaad ee barnaamijka waxay ku leedahay sida tan su'aasha labaad waxay leedahay sida tan anigu shalay ma nooleen maantana sidoo kale ma noole hadda ka horna qof horay iima arkin mana laga yaabo in ay arkaan kuwa dambe oo nool laakiin dhammaan noolaha oo dhan waxa ay ku kalsoon yihiin inaan iman doono haddii aan anigu jiri lahayn adduunyada xitaa ruux ku riyoon lahaa ma jirto waan kuugu celinayaa mar labaad su-aashii waxay leedahay sida tan anigu shalay ma nooleen maantana sidoo kale ma noole hadda ka horna qof horay iima arkin mana laga yaaba inay arkaan kuwa nool oo dambe laakiin dhammaan noolaha oo dhan waxa ay ku kalsoon yihiin in aan iman doono haddii anigu aanan jiri lahayn adduunyada xitaa ruux ku riyoon lahaa ma jirto marka kuma ayaan ahay ee car i garo makuu saddexeeyaa mar saddexaad su'aashan waa su'aal u baahan in caqli looga jawaabo waana jawaab aad u fudud laakiin si farsamo caqliyaysan ayay u baahan tahay waxay leedahay sida tan anigu shalay ma nooleen maantana sidoo kale ma noole hadda ka hor qof ii arkay ma jirto mana laga yaabo inay ii arkaan kuwa dambe oo nool laakiin dhammaan noolaha oo dhan waa ay ku kalsoon yihiin inaan iman doono haddii aan anigu jiri lahayn daawadayaal adduunyadaba xitaa ruux ku riyoon lahaa ma jiro haddaba kumaan ahay oo car i garo jawaabtaas ma bixinaysaa sida aan ku weydiiyey u fikir waxaan ku yidhi anigu shalay ma nooleen ilaahay shalay ma nooleen wuu noolaa allah soo ma mar kale ayaa fursad u haysataa su-aasha jawaabteeda isku dayo waa noolaha shalay qaaraa nooleen beri way dhimanayaan jawaabtaas miyahow ma fahmin waa adagtaa waa hagaag yaa kaloo ka faa'iidaysan doono su'aashaas waa hagaag daawadayaal qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay wiil aad u da'yar oo arday ayaa la taagan magacaaga cabdulaahi maxamed cabdulaahi cabdulaahi jawaabta berito yaa salaam su'aashii cajiibkeed ardaygan ayaa ka jawaabay oo ahayd su'aashii u dhacaysay anigu shalay ma nooleen maantana sidoo kale ma noole
hadda ka hor qof i arkaa ma jiro mana laga yaabo inay arkaan kuwa dambe oo nool laakiin dhammaan noolaha oo dhan waxay ku kalsoon yihiin inaan iman doono haddii anigu aan jiri lahayn adduunyada xitaa ruux ku riyoon lahaa ma jirto kumaan ahay jawaabta ku celi mar kale بريتو berito magacaaga عبد الله محمد عبد الله cabdulaahi oo daayar fasalkaa dhigataa سدعات fasalka saddexaad arday ah ayaa ka jawaabay hambali ayaynu ku leenahay waxaa ku guulaysatay buug xusuus qor ah oo ay kuugu tala gashay super sign hambalyo عمبلي waagaag daawadaal qaybtii dambe ayaynu soo gaarnay hal su'aal ayaa inoo hartay oo ah su'aasha koowaad saaxiib ayaa ila taagan saaxiib magacaaga محمد عبد الله maxamed dhalinyaro magaalada muqdisho ka mid tahay ها haye hal lambar ayaa haray oo lambarka koowaad ايه haye su'aasha ku xusan deer waa taa Soomaa يا رب هاي waagaag su'aashan ku weydiinaa waxay tahay waa su'aal xisaaba su'aasha xisaabtu waxay ku leedahay 12 haddii lagu dhufto 2 waa imisa 12 haddii lagu dhufto 2 waa imisa طبعا لو كدفو تاسي فداد واي haye kaamira aad u eegayahay waagaag saaxiibkay waa ku daadatay waagaag daawadaal su-aashii ugu dambeysay barnaamijka oo ay su-aal xisaaba noo dhacaysa waxaa sheegtaa 12 haddii 2 lagu dhufto saaxiib dhalinyaro ayaan weydiinay uu ku guuldaraystay balse gabar ardayad ah ayaa ila taagan marka hore magacaaga magacaygu waa amaal muxudiin igu celi magacaaga amaal muxudiin amaal waxaa ka mid tahay ardayda wax ka barata magaalada muqdisho sax su-aasha xisaabta ay ahayd 12 lagu dhuftay 2 jawaabteeda ma haysaa haa haye maxay noqonaysaa 24 24 ma hubtaa haa haye fasalkeetaa sanadkan toddobaad toddobaad ayaa tahay hambalyo amaal waxay ku guulaysatay hadiyaddii loogu talagalay 12 lagu dhuftay 2 waa 24 hambalyo ayaanu ku leenahay waqti wanaagsan adiga iyo waalidka iyo weliba macallimiinta insha allah waagaag hambalyo ayaanu leenahay amal barfuuni waxay ku guulaysatay buug xusuus qor ah oo taariikheeda dambe ay ku qortay iyo taariikhayii horeba hambalyo ayaanu ku leenahay hambali waa hagaag daawadayaal guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hel hadiyad oo aad ka daawanayseen telefishinka dalsan anigoo xasalaka ayaa idinla socodsiinayay saaxiibkay maclow ayaa dhinaca kamarada joogay waxaana barnaamijka taabagelinayay shirkadda daabacaadda caalamiga ah ee casriga ah adeeg hufan iyo weliba shaqaalahaygan ah u adeegidoodana diyaar idinla ah tanii kulantideenna dambe sidaa ay nabadgeliyo ramadaanulkariim مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام